marka koobaad waxaan leeyahay runtii madaxweynihii loo hanweynaa ee ummadda Soomaaliyeed ay rajaynaysay midnimadeedii iyo wadajirkeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii inuu soo celiyo wuu fashilmay sidii kuwa hore u fashilmi jireen waa nasiib darro aad u weyn wixii rucule iyo orod naga baxay iyo rajadii aan qabnay waxyina kuma soo degaynin markii la daba orday oo meel kasta laga banaan baxayay dadka wuxuu siiyay oo ka wada simayna ma jirin rajadii Soomaaliya nooga dhex muuqatay rajadii Soomaaliyana asaga dilay waa nasiib darro madaxweynaha yuusan qofna ku eedin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo qof dhiibay qof Soomaaliya oo cadawgeedii soo jireenka ahaa ee Itoobiya u dhiibay xaq uma leh inuu xukumo shacabka Soomaaliyeed madaxweyne fursad baad haysataa waa laba dhagax oo ku soo celiso Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho aad ku soo celiso hadii Ilaahay yiraahdo qalbi dhagax ummadii Soomaaliyeed oo dhan baa u dagaalamaysa qodobka saddexaad waxaan leeyahay labada gole waan idinka warsugaynaa inaad mas'uul ka tihiin dalka iyo dadka iyo diinta iyo inaydan ka ahayn dhacdadan baa cadeyn doonta ama hoos ha loo hadlo ama kor ha loo hadlo waxa kale oo idin xusuusinayaa waxaan nasiib darro oo ayaan darro 500 sano wixii loo soo dagaalamayay oo midnimada ummadda Soomaaliyeed ahayd oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan u soo dagaalamay ilaa intii ka dambeysay SYL ay soo gaadhay loo dagaalamayay oo 77 ay ugu dambeysay maanta in la inkiro oo la kala tuuro waxaan idin leeyahay magaciin jiriye taariikhdiina yaynan ku qormin yaa joogay baa la dhihi doonaa xilliga ayada ah waa wax ayaan darro aweeye waxa maanta dhacay oo wali la sii fiirsanaya annagu Ilaahay baan sugaynaa thumma waxaan sugaynaa labadiina gole go'aanka aad gaartaan haddaad gaari weydaanna waan wadaynaa abaabulka halgankana waan wadaynaa hogaamiyihii ummadaan midayn lahaa oo isu keeni lahaa inta laga helayo waxa kale oo nin kasta la rabay inuu ogaado wiilka Gaarisa jooga Muqdisho weeye caasimadiisu madaxweynihiisuna waa madaxweynaha Soomaaliya wiilka Addis Ababa jooga madaxweynihiisu waa madaxweynaha Soomaaliya wiilka Jabuuti jooga madaxweynihiisu waa madaxweynaha Soomaaliya awood iyo midnimo iyo qarannimana loo baahan yahay ninkaan awooddaas lahayna yuusan hunguriyeynin xabashi ninkaan dalka ka badbaadin karin oo Kenya ka badbaadin karin yuusan soo hunguriyeynin saldanada Soomaaliya wixii hore way baaba'day nin qabiil loogu danaynayo iyo nin jagal loogu danaynayo iyo nin loogu danaynayo muxuu ahaa hunguri khaas ah iyo dana gaar ah oo dambe way dhamaa dawlad baa dalka ka jirta bacda siyaad barre dawlad aan soo marin baa Soomaaliya ka jirta qabka markii la yiraahdo wadaniyada markii la yiraahdo dhibco waxay haysataa dawladan wali wax la yimid aysan jirin dawladihii ka horeeyay bay haysataa waan tirinayaa dhibcaha waliba telefishinada waxaan rabaa inaad qaadataan warkaas 4 sano oo 2 bilood 3 bilood dhiman dawlad mushaar bixisay siyaad barraayada laga arkay miyaad diidantihiin 3 maxamed siyaad barre kadib UN-ta ninkii wakiilka u ahaa dawlad qabkaalaho subax cayrisay ayada laga arkay ciidankii Soomaaliya maxamed siyaad barre kadib 30 sano wax lambar iyo liis iyo askariga loo baahan yahay maanta u sameeyay muxuu ahaa gal askariga laga heli karo oo lambar u sameeyay oo mushaarka la bixinaya askarta qaadanaysa la yaqaano siyaad barre kadib ayada laga hayaa run ma tahay saas hada ma saxbisaan maxaad sugaysaan haye dhibcahaas hadday haysato ma waxaanu dhahaynaa dawlad ma aha waa dawlad